يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. kulanti wanaagsan dhammaan bahda youtube-keena ku xiran khaliif islamic media. waxaa caawa magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya aan wareysi kooban uga qaadanaa barnaamijka dhalinyarada da-da yar iyo aqoonta ay barteen, heerka waxbarashada ay soo mareen, doodiga iyo dadaalka ay sameeyeen iyo ahdaafta guushaas ku gaareen, asbaabaha ay ku gaareen inaan ka wareysano si dhalinta soo socota ay u noqoto tusaalooyin muuqda ay ku daydaan. haddaba barnaamijkan waxaa caawa nagu martiya ustaad doctor maxamed sheekh nuur oo naga soo boqday dalkan jarmalka. doctoorka 21 sano 12 sano waxbarasho dugsiga hoose dhexe sare, 7 sano oo takhasuska caafimaadka wuu ku diyaarinayay mid ka mid ah wadamada carabta. kadibna hadda doctoorka wuxuu diyaarinayaa takhasus wadanka jarmalka. waxaan insha allahu tacaala wareysigan kooban aan ku weydiin doonaa su-aalo kooban. soo dhowow doctor maxamed sheekh nuur, dadka qaarkood u yaqaanaan ustaad maxamed sheekh nuur. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. waa dhowahay Ustaad Axmed Khaliif. waxaan aad uga mahadcelinayaa bahda Khaliif Media soo dhoweynta ay ii sameysay khudbada ay siisay maanta. Masari Ores. aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Soo dhawaad. aad baa umahadsan tahay sidaadan noo aqbashay wareysigana aad noo ogolaatay. su-aasha koowaad, 21 sano waxbarasho ee weli aad sii wadi, waa dugsi dhexe, dugsi sare iyo baaj iyo master degree hadda awood takhasus u dambeeya caafimaadka, oo weliba qurba ku diyaaris meelo aad hooyada aabaha iyo walaalaha asxaabta aysan joogin. runtii su-aasha waxaan ka weydiina marka waad ahdaafta yani hadafkan aad gaartay bacdallahi kadib yaa is leedahay asbaab, wuxuu asbaab u yahay ama asbaabta guusha aad gaartay 1 iyo 2 maxaa nooga sheegi kartaa adoo raalli Eh, wallaahi yahow, haddaan fiiriyo asbaabta waxaa ugu muhiimsan horta qofka inuu Ilaahay ku xiran yahay saa sheegtay. ku xirnaanshaha Ilaahay waxaa soo labeeya ducada waalidka. aad iyo aad. ducada waalidka qayb weyn bay ka qaadataa. Saan isleeyahay wayna tahayba. safar dheer buu ahaa waxbarashada 21 sano dardarkoodii oo weli aad sii wadi. ugu horeyso dee barashada quraanka taa mid lagu aad iyo aad. kasii badan. haa kasii badanaysaa runta. laakiin markii laga soo bilaabo barnaamijka diraasiga iskoolka iyo markaas nidaamka waxbarashada laakiin waxaa ugu muhiimsanaa sidaan sheegay ducada waalidka. ducada waalidka. marka waxaa leedahay qof kasta rabo inuu hadaf gaaro, waalidkiisa u nool yahay, waa inuu ducadaasi. wasadu waa kaas. marka ducada waalidka mala ii ducee miyaa lalahaa mase kasba qof inuu kasbaa laga rabaa is leedahay? wallaahi dabcan waalidku qof qura inuu kuu duceynaa mar kasta, laakiin wax gaar adiga waalidka aad ka kasbata ma jiraan? wallaahi taas waalidka dee horta waalidka mar walba wuu ku jecel yahay mogta. waalidka waxaa fiican inaad duruufahaaga ama mararka qaarkood dee ahdaafta aan leedahay inaad la wadaagto. laanna waalidka waa qofka keliya jecel inaad ka hormarto, keliya jecel waxyaabaha ahdaafta aad rabto inaad gaarto oo kale waalidka inaad la wadaagto way fiican tahay si uu kuugu duceeyo marka. waxaa leeyahay matalan waxaas rabaa inaan gaaro ducadiina adigana dadaalkaaga aad la timaado adigana waad duceysid. aad iyo aad. doctoorka si kooban haddaad nagu sharaxday asbaabta guushaada ugu horeysa duca waalid. waxaan isleeyahay qof kastoo dhalinyaro ah maanta hadaf waxbarasho raba, waalidkiisa u nool yahay, kama maarmi karo ducada waalidka. wuuna u baahan yahay markas inuu ka duceysto. asbaabta ducada inuu sameeyana ardaygii waa laga rabaa si uu guul u gaaro. haddii waalidkiisa kaba soo qaad laa qadar allah walaa samax allah ay geeriyootay oo hooyadii mase aabihii, dadkii waalidkaasi inuu xiriiriyo sida axaadiista sheegay dadka ehelka u ahaa isku dhawaayeen macrifada inuu xiriiriyo waa qayb ka mid ah ixsaanka waalidka loo sameeyo. marka guusha koowaad ustaadku uu noo sheegay waa ducada waalidka. doctor 21 sano waxbarasho waxay u baahan tahay sabar, saan rajeynaya weliba qurbo markaad joogdo luuqad kale wax ku baranaysaa, ummad kala dhex galaysaa, noloshii macaanka badneed oo hooyadii canjarada saliidda wax meelaysa. arrintaas maxaa is leedahay caqabad noocaas camal way wajihi karaan ardayda qurbaha wax ku baranaysa? wallahi ustaadow, horta waxbarashada sideeda juhdi ay u baahan tahay. markii maaragtay laakiin lagu sii daro qofka inuu qurbo barashadii sii wado oo waxbarasho qurbaha isagoo joogo inuu waxbarasho sii wado challenges badanaa ka hor imaanaya. marka koowaad qofku waa keligiis, asxaab badan ma haysto, asxaabta dadka dhan waa ku cusub yihiin.
waxaa laga yaabaa qofka dee Soomaalida sidaan naqaano waxyaabo badan in qofka laga saacidey jiray markuu gurigiisa joogay, cunadiisii, isaga maaragtay alaabtiisa, dharkiisii wixii laga saacidey jiray, nolosha caadiga laga saacidey jiray, ها ها waxbarashada kaliya kuma mashquulsana. aad iyo aad Xagga markuu tago qurbaha oo kale, wixii dhan asagaa mas'uulka ah, saa masuulka nafsadiisa caafimaadkiisa oo dhan. caafimaadkiisa wixii dhan asagaa ka mas'uul ah noloshiisa. Marka challenges badan oo qofka wajahaya, qurbana waa luqad kaloo la baranayo waxay u baahan tahay luqadii wax walba garata. ustaad saan ka warqaba waxaan rajeynayaa dadkii horta luqadda carabi wax kusoo barata ahayd iskuulka dugsiga sare luqadaha aad baratay hadda aad toos uga hadli kartid hal iyo laba iyo saddex hadday jiraan bal nala wadaag Macallin guud ahaan horta waxaan ku hadlaa 4 luqadood markii lagu daro luqadeena hooyo afka Soomaaliga, waxaa soo raaca Carabiga oo iskoolkii aan kusoo bartay, Ingiriishka iyo Germany oo hadda waddankan jooga ah. Intaas wallah. weliba dee carabiga waddan carbeed muddo ku nooleed iyo sasna ku nooleed Carabta adiga 10 sano waa lama sano waddan aad joogda kulley luqadiisa Carabiga iyo Soomaaliga hadda waa almost iskaga dhow yihiin. hal iskaga dhow yahay aad baa umahadsan tahay doctor waxaa noo dhiman dhowr su'aal su-aashan waxay tahay waa su'aal kadiisa lagu gaadaya insha allah noloshaada intaad ka warqabtid habeenada ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah waxaa ku soo maray wax aad yacni surprise farxad aan marna aadan filayn ama aad filaysay ama rajaynaysay maxay tahay yacni intaa nooleed aad ka warqabtay waxbarashada aad ku jirtay wajaalka waxbarashada waxa ugu farxad badnaa ee noloshaada aad xasuusan kartid kusoo gaaray aad ilaa hadda iloobi karin Eh, Wallahi dee nolosha waxyaabo badan qofku way soo maraan, laakiin aniga hadda midda iigu saameynta badnayd oo maaragtay baarin samaysay aad iyo waxay ahayd aan ku guuleystay imtixaankii lagu qaadanayay ardayda scholarship-ka Allah. waddanka Islaamka. imtixaanka bega islaamka lagalay meeqa arday asleeda markaas kaalinta u gasho ugu qof u horeeqa aan noqotay miya mas 10 koraad gashay Wallahi horta marka koowaad waxaa la sameeyaa ardayda kaalmaha koowaad kasoo gashay iskoolka imtixaan kala reebto la bixiyaa. kaalinta ma gashay Kadibna waxaa lasii sameeyaa imtixaankaas kala reebtaa markii 10ka u horeeya lasoo qaato. Haddana waxaa lagu sii kala reebaa wax la yiraahdo qorituur. intooda ku soo baxday Ilaahay amarkiisa. waxaa laga yaabaa ardayda qaarkood inaysan imtixaanka bega islaamka ka warqabin ustaadka waxaan u malaynaya ardaydii 2000 Sagaal. 2009ka oo adiga wax 16 sano ku dhawaad ka hor marka xilligaas waxaa jiri jiray ardayda dugsiga sare iskuulkaaga hadday kaalintkooda u gashin arday kastoo iskuulkaasi kaalintkooda ka gasha waxay galayaan imtixaan kale oo la imtixaanka bega islaamka oo caalami ah international ahaa kii uu macalinka haddana kaalin fiican ka galay oo ugu horeyso kaalimihii uu galay oo ugu horeeyay haddana waxaa lasii sameeyey qorituur yaa lasii wadaa si gaara marka si gaara marka nasiibkaas macalinku farxaddii uu hadda ilaa hadda xasuusto waaye marka waxaan is dhihi karnaa arrintaas duco waalid baa isleeyahay markiiba kuu soo bilaabatay ustaad waxaad ahayd macalin quraan oo dugsiga Mucaad bin Jabal ee degmada Dharkiinley dadkii muddo dheer wax ka dhigay quraan ka dhigay ka mid ahayd arday badan aflaxay hadda adduunka meelo badan joogaan qaar guursada qaar iman leh marka masaajid baad imaam ka ahayd intaan ka warqabno su-aasha hortaan u gudbin aayado quraan dalabkooda waxaa igu soo dhacay su-aal qofka asagoo dhakhtar muslim ah oo filar ama qayb majaal waxbarasho oo ku saabsan naadi inuu barta iyo quraanka inuu isku wado iyo diinta yani isdiidayaan isleedahay ra'yigaaga saa macnaha muxuu ku leeyahay su-aashaas in qofka laba shay isku wado dhakhtarna noqdo dhankalena caalim diinta islaamka xambaarsan noqdo barashada Wallahi waxbarashada labada qayboodba waa cilmi marka la dhaho diiniga iyo maadiga labada qofka isku helaa dee waa top. Laakiin haddii mid la dooranayo diiniga la doortaa fiican laakiinse labada qofka markuu isku helo yani waxaa waaye wax aad u yani nolosha ugu fiican oo qofka heli karo. ku wada kala labadooda labada si fiican labada ismid labada cilmi weeye marka qofka labadooda isku barto dee waa yani nicmo aad u weyn aad iyo in nasiib lahaa hela. aad gunaanadkii iyo gabagabadii wareysigana maadaama aad ahayd macalin quraan oo majaalka waxbarashada quraanka soo bilaabay arday badan oo quraanka soo saartay oo waxaa jira quraan barteen oo madraso xaafadda ku taali jirtay iyo masaajidka isku hayn jirtay marka ustaadii waxaan rabnaa inaad codkaaga dib u xasuusano dadka inta ku taqaano 10 sano ka hor 15 sano ka hor masaajidkii jamaacadii iyo dadka codkaaga in aayado ka mid ah aad wareysigana kusoo gabagabaysaa rajeynaa insha allahu tacaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما aad iyo aad buu umahadsan yahay jazaahu allahu khayran codkiisa macaana xasuusta leh muddo dheer ugu dambeysay ilaah waxaan ka baryana miisaankiisa xasanaadka nagu daro ustaad doctor maxamed sheekh nuur oo marti nagu ah magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ahna dhakhtar buuxa oo takhasus ka qaadanaya wadanka jarmalka oo muddo 2 sano hadda kasii wada takhasuskaasi wadanka jarmalka ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeynaya inuu dadka uu ku anfaco nafsadiisana uu anfaca dhammaan dadka soomaaliyeedna ay ku mid anfaca ka dhigo intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waa barnaamijkii ku saabsanaa dhalinta da'da yar iyo mustaqbalka waxbarashada ay heer ka gaareen oo doktoorka ugu horeeyay wareysiga koowaad aan qaadnay insha allahu tacaala kulanti wacan mar labaad isku soo laabasho wacan dhammaan akhyaarta nagu xiran janalkeena khaliif islamic media